dugsiga farsamada gacanta ee Halbeeg Burco ayaa munaasabad ballaaran u qabtay 120 arday oo ka qalin jabisay dugsigaasi. Dugsiga Halbeeg oo lagu barto xirfadaha gacanta sida makaanikada, biyo-gelinta, dabgelinta, dawaarka, dhismaha cilaansaarka, solarta iyo electronicska. Dufcadan oo ahayd tii koowaad ayay ardaydu ku soo bandhigeen tacabkii iyo aqoontii la geliyay, waxaana kala soo qayb galay maayir ku-xigeenka degmada Burco Mukhtaar Baaryare, xildhibaano, mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka, waalidiin, shirkadaha Telesom iyo Heeko iyo mudan kale. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga farsamada gacanta Halbeeg, injineer Cabdixakiin Axmed Maxamed, isagoo faahfaahin ka bixiyay ardaydan maanta qalin jabisay iyo dugsiga. waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ardayda guud ahaan maanta ka qalin jabinaysa dugsiga farsamada gacanta Halbeeg. runtii waxaad muujiseen dadaal iyo samir waxbarasho. ilaahayna waxaan idinka rajeynayaa inuu ilaahay cilmiga aad barateen idinka iyo waalidkiin iyo qoyskiina iyo qarankaba ilaahay idinku anfaco ayaan idin rajeynayaa. ardayda halkan fadhida ee maanta ka qalin jabinaysa dugsiga Halbeeg ay ka kooban tahay 120 arday oo isugu jira 26 arday oo ka qalin jabinaysa xirfadda makaanikada iyo dabka gaadiidka oo soo dhiganayay muddo hal sano qaadanayana maanta shahaadada dibloomada. 44 arday oo ka qalin jabinaya xirfadda laydhka, 50 arday oo ka qalin jabinaya xirfadda biyo-gelinta. guud ahaan labada qaybood ee biyaha iyo laydhkuna waxay soo dhiganayeen muddo 8 bilood waxaanay qaadanayaan shahaadada certificate-ka. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ku kalsoonaataan naftiina, xirfadiina, qarankiina. insha Allah waa noloshiina aad dabartaan, qoyskiina iyo qarankiina aad wax ku soo kordhisaan. maadaama imika noloshii noqotay xirfad, farsamada gacantuna ay qayb ka noqotay waxyaalaha asaasiga nolosha u ah ee lagama maarmaanka ah. marka waxaan rajeynayaa oo aan kula dardaarmayaa waalidkana in arrintaasi ay aad u xoojiyaan. tusaale ahaan shirkaduhu ama ganacsatadu markay u baahdaan qof farsamo yaqaan ay u yeelayaan qof ajaaniba, waxaa muhiima oo ay waliba lacag badan ku bixiyaan, waxaa muhiima inay door bidaan oo dhiirigeliyaan kuwa dalkooda wax ku bartay. kuwaynu wadamada dibadda uga yeedhayno dadkooda iyo dalkooda ku tabcay oo wax baray. maxaa inaga inoo diiday inaynu kuweena ku tacabno oo wax barno oo aynu soo saarno dad xirfadyahana oo waxa weyn baahiyaha aynu tabayno daboolaya. maayir ku-xigeenka degmada Burco, xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco, Axmed Xiis Dharbaan iyo Khalid Xasan Xaaji Diiriye, Maxamed Axmed Faarax oo ka mid ah guddida iskuulka, mas'uuliyiin ku hadlayay afka shirkadaha Telesom iyo Heeko ayaa bogaadiyay dugsiga Halbeeg iyo ardayda maanta qalin jabisay. waa munaasabad qalin jabineed oo maanta ardayda xirfadahan ku takhasusay aynu ku maamuusano oo aynu ku dhiirigelinayno xirfadda gacanta laga qabsado. waa u hambalyeynaa markii hore maamulkii hindisay inay degmada Burco iyo gobolkaba ay ku soo kordhiyaan qorshahan. aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynaa dhalinyarada maanta faraxsan ee la siinayo aqoonsigii aqoontay barteen ay ku shaqo tegi lahaayeen. annagu waxaan idin leeyahay dowladda hoose ku qadimaysa insha allahu tacaala. ardaydu ay ku qalin jabinayso baratay xirfaddii gacanta, electricity-ga iyo plumbing-ka, biyo-gelintii iyo laydh-gelintiiba. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad kala soo qayb galo. waxaan hambalyeynayaa ardayda iyo waalidiintood. maanta halkan waxaa fadhiya 120 arday oo qalin jabinaya oo bartay xirfado aasaasi ah oo uu gobolkeenna aad ugu baahan yahay. hadday tahay biyaha, hadday tahay laydhka iyo hadday tahay baabuurta iyo makaanikadooda. ardayda waxaan leeyahay hambalyo. ilaahay aqoonta aad barateen waxa idinku anfaco oo ha ka yeelo tii dalka iyo dadkaba maaragtay aad uga faa'iideysaan. cilmi baadhistu waxay muujinaysaa waddanku dhalinyaradiisa boqolkiiba inta uu baray farsamada gacanta iyo wax soo saarkiisa ama dhaqaalihiisu inay isku xidhan yihiin. sababtuna waxa weeyaan dadku markay wax bartaan oo farsamooyin la baro dee wax soo saarkoodii iyo shaqadii ay qabanayeen ama badeecooyinkii ay soo saarayeen ama adeegyadii ay soo saarayeen baa badanaya. waxaan soo jeedinay shirkadaha halkan fadhiya oo ugu horeeyaan shirkadihii Heeko ee inoo siraa jirtay gobolka, shirkadii Telesom iyo Somtel. waxaan idin leeyahay rag halkan fadhiya arkaysaan dee meesha cid kale ma fadhiyaan, idinkan bay idin fadhiyaan. in annagu qaybta naqusaysa ee laydhka baahideedu ay joogto tahay. imikadana wixii suuragal insha Allah inamada ciddii temporary insha Allah tacaala gelaysa xafiiska insha Allah tacaala ayaan ku soo dhaweynaa. waxaan hubaa
raggiina halkaa fadhiya dhowaan inaad shaqo wada heli doontaan insha allah mida abuurataan waxaan leeyahay oo idinku ducaynaya ilaahay amuriina ha idiin fududeeyo hana isku dayina inaad niyad jabtaan laba dhinacba horumar uga sameeya inaad sii wadaan tacliinta oo shahaadadaa maanta tii ku xigtay iyo tii ku xigtayba aad sii barataan oo aad sii wadaan waxaad barateen waa technician maintenance iyo inaad wax hagaajisaan waxa aad samaynaysaan aad hagaajinaysaan wax engineeringkiina ka dhashay waa inaad ku kordhisaan marka iyaguna markaynu caadiga u shidanana waa kuwa markaan salaantoo kale ama gaadhi aynu bibigsiinana waa kuwa marka iyaguna saas ayay u baxayaan waxaa ku xiga marka iyaguna faranjooyinka marka iyaguna inoo baxaya marka si aynu aragnaa si aan leerkan iska baqtiino si aynu aragno marka faranjada waxaan ridinaa dacalka guri dhameystiran oo wayr garanti iyo dhamaantii oo dhameystiran halkan waa shul celiye ama hagar qof sidoo yaqaano kan waa saacadii halkan waa jiliska maalamkii markaan jiliska hadda doonayo guriga markaan ka soo galo albaabkan ka soo galayo kamaan shidaya si aan u fahman xaafadda hadii xaafaddu aad u weyn tahay ama durugsan tahayba halkan oo kale biyaha laga kantaroolaa mar saacadda falaadhaas ay leedahay xaggaasay tilmaamaysa falaadhaas in biyo u socdaan saacadda waxaa la yidhahdaa turkish kaagaas biyaha laga kantaroolaa gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey 120kii arday ee maanta ka qalin jebisay dugsiga Halbeeg sidoo kale waxay ardaydu maamuuseen maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco